بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسنا أصحابتنا قد دابطاي سقالتي وحد كسر باتنا برامج وريتكنا قضبض وقدر كرون عاو واحد كل جيسان دو تنوحا كم النقنية مدحبينها جمهورية دلك أومان ترتقى قولها برلمانكا madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo shaaciyay waxyaabo badan kuwaasi oo aan looga hordhici karin shirka wajiga saddexaad ee ka furmay dhuusamareeb madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo waliba kan Kismaayo Axmed Madoobe ayaa shirka lagu waday inay soo gaaraan saacadaha soo wajan madaxweynaha jamhuuriyadda dalkana waxa uu garay magaalada dhuusamareeb halkaasi uu kaga qayb gali doono shirka wajiga saddexaad ee halkaasi ka dhacaya marka ismaqal cudoon asxaabta naga daabatay sagal tiyub waxaad soo maqasheen qodobada wararka kooda ku dorkora markan ayaga oo intaasi ka sii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dalka mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta hortagay golaha baarlamaanka waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa guddiga doorashooyinka qaranka xalimiray waxaana lagu waday in halkaasi lagu soo hadal qaado doorashooyinka qaranka wallow aanu inta badan xoog la saarin madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa khudbada uu ka jeediyay golaha shacabka oo maanta koramku ay soo buuxiyeen tiro badan oo xildhibaan ah ayaana soo xaadiray madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana khudbad dhaxalgal ah u jeediyay golaha baarlamaanka Xaliimo Yarey oo ah gudoomiyaha doorashooyinka qaranka ayaa qudheeda waxa ay ka qayb qaadatay hadaljeedinta maanta oo ay baarlamaanka hortagayeen madaxweynaha jamhuuriyadda dalka iyadoo ah gudoomiyaha doorashooyinka qaranka magaalada dhuusamareebna waxaa lagu wadaa in uu ka qabsoomo wajiga saddexaad shirka kaasi oo u dhaxeeya maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaana gaaray magaalada dhuusamareeb halkaasi uu kaga qayb gali doono shirkan waxaana inta badan diiradda lagu saari doonaa doorashooyinka iyo waliba dowladda oo xilligeedii gabaabsiga ku jirta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa loogu fadhiyaa in halkaasi uu ka jeediyo khudbad dhaxalgal ah maadaama wajiga saddexaad ee shirka uu yahay waxaana lagu wadaa in halkaasi maamul goboleedyada waxyaabaha ay ka tabanayeen dowladda federaalku ay ku soo bandhigaan waxaana sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda looga fadhiyaa in halkaasi taariikh lagaga diiwaangeliyo taasoo ah waxyaabaha tabashooyinka ah iyo waliba sida ay dowladda ku wajihi lahayd xilliga kala guurka lagu jiro iyo waliba isu diyaarinta doorashooyinka qaranka dalka akhbaaradka ka baxsan Soomaalidana waxaa qayb ka ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu qoraallo la wadaagayay dhanka Twitter-ka siyaasiyiinta dalkaasi Mareykanka waxaana imika socota ololo taasi oo la isugu diyaarinayo in doorashooyinka dalka Mareykanka loo dareero dhawaan ayaa ahayd markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu qabto doorashada dalkaasi Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa qoraallo ka careysiyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka Mareykanka u dhashay ayaa waxa uu adeegsadaa dhanka iyo baraha bulshada ee aaladda Twitter-ka dhawaan ayaa ahayd markii qaarkood siyaasiyiinta dalka Mareykanka ay ka muujiyeen walaaca dhanka iyo waliba ilaalinta dastuurka dalka Mareykanka maadaama ay ku tilmaameen in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump uu ku tumanayo sharciga ee dalkaasi u degan waad kala socoteen sagal tiyub asxaabay wayna gayntaa cidii warkii sheega waxay dib naga baadhan kartaa page-ka internet-ka ku leenahay ee sagaltiyub.com.net iyo waliba dhanka iyo Facebook oo aad si toos ah ugu heli doontaan nabadgelyo